tababare Cabdiweli Maxamed Cilmi oo kamid ahaa marti sharaftii ka soo qayb gashay bandhiga caalamiga ee bugaagta magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ku soo bandhigeen iyo sida ay uga qayb qaateen bandhiga bugaagta caalamiga ee ka furmay magaalada Hargeysa. bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore Ilaah baa mahad iskale marka labaad waxaan mahad celinayaa TV-ga Goobjoog iyo walaalkii Liibaan iyo dhammaan saxaafadda sharafta badan leh maanta maalin weyn weeye maalin ugu qaali weeye runtii farxad weyn bay nootay inaan ka soo qayb galno runtii marka laga yimaado qaybta dhiirigelinta iyo qaybta socialka ee dhalinyarada aan bulshada u hayno waxa kale oo adilawada teatrkii kale oo ah inaan kamid ahay gudida library-ga Burco oo dhisaysa library-ga weyn Afrika inaan doonayno inaan dhisno oo library aad ugu weyna farxad bay nootay inaan marti sharaf fara badan iyo dad fara badan iyo dalal fara badan ka kala yimid aan isku aragnay oo aan maxay ahayd wada shaqeyn badan iyo maxay ahayd si dhiirigelin badan aan ka helay haddaan ku soo noqdo bugaagta maanta aan ku soo bandhigno bugan waxa weeye nadiifinta maskaxda kubcinta iyo nadiifinta maskaxda waxa qortay qoraa ingiriiska joogta oo Safiya Farax Bandar la dhaho macallimad psychologist sidoo kale bugan kalena waxa weeye barbaarinta ubad qurxoon marka laga yimaado kulli aynu Soomaali ahaan amba Islaam ahaanba markaynu koobaad maskaxda inaynu maamulo ay aad muhiim u tahay bugan kalena wuxuu yahay barbaarinta ubad qurxoon saynu helo oo mustaqbalkeena dhamaanteen aanu wada baahanahay marka bugaagtii maanta halkan lagu soo bandhigay ayuu ka mid yahay labadan bug dadku aad u daneynayeen ama aad u doonayeen farxad baan ay tahay walaal mar labaad iyo mar saddexaad insha Allah bismillaahir karim soo noqon dambe iyo sanad dambe qurux badan hadii ay beedmayo insha Allah bismillaahir karim waxaan jeclaan lahaa sidana dambe inaan sidii ay inta halkan ugu timi in laba laabkeed bay Burcaan ugu iman doontaa diiray ka dhigo aan hawsheeda ku jiro. Liibaan Cismaan Cali, telefishinka Goobjoog, Hargeysa.